Assalaamu calaykum daawadayaal. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Ha ilaawin inaad muuqaalkan like saartid. Share-na ha ilaawin si uu muuqaalkan u gaaro saaxiibadaada. Mahadsanid. Filimkeena maanta wuxuu ku bilaabanayaa ayagoo la tusayo ciidanka American oo u socdo xagga Faransiiska. Waxayna ahayd sanadka 1960-kii. Howlgalkoodna wuxuu ku saabsanay inay aadaan oo ayna qaracaan sarta dheere ee Jarmanka. Ciidanka wuxuu ku saabsanay dad aad u tiro badan oo gaaraya 120 qof. Markay soo galeen dalka Faransiiska, waxay dhacmareen hogol aad u culus. Hal mar diyaaradda badan waxay bilaabeen inay qaracaan, taasi oo ka nacisay ciidanka oo dhan. Waxaana ku xigay weerar oo sababtay dhaawac iyo dhimasho aad u badan. Ciidanka oo dhan way dhimani doonaan hadday si dhaqso ah ka boodi waayaan diyaaraddaasi. Hal mar waxaa qaracay dhanka dambe ee diyaaradda, taasina waxay ku dhigtay inay ciidanka oo badan xagga ka fakadaan. In la dhahayo Boys wuxuu ka booday diyaaradda. Markii uu hawada ku jiray, wuxuu ku wajahsanay khatar, ileen xabad badan ayaa soconaysay. Wuxuuna awooday inuu furto barashuudkii, taasi oo ka dhigtay inuu badbaado. Wuxuuna ku dhacay biyo. Barashuudkina wuxuu ku sababay inuu biyaha hoosteeda ku cabismo, balse ugu dambeyntii wuxuu soo baxsaday mindidiisa, wuxuuna ka soo baxay biyihii. Markii uu cabbaar socday, waxaa rasaas ku furay robotkii Jarmanka. Boys wuxuu isku diyaariyey inuu la dagaalamo ciidamada Jarmanka. Isagoo socodkiisa ku jiro, wuxuu arkay inay ciidanka Jarmanka qabteen madaxdoodii. Markii uu Boys soo baxsaday qorigiisa si uu la dagaalamo, waxaa ka reebay nin kale oo ciidankoodii ka tirsanay. Labada nin waxay fiirsadeen ayagoo madaxdoodii la dilayo. Saaxiibkiisa oo la dhahayo Fog wuxuu isaga xasuusiyey inuu howlgalku ku saabsan yahay sarta dheer oo ayna tahay muhiim. Intaas kadib, labada nin waxay la kulmeen 3 kale oo ka tirsan ciidankoodii. Shantoodii waxay noqdeen hal koox. Ayagoo socodkoodii ku jiro, nin oo ayaga ka tirsanay wuxuu ku istaagay bombo, taasi oo sababtay qarax. Kooxdina waxay wateen safarkoodii. Markay cabbaar socdeen, waxay arkeen xayawaan dhintay. Hal mar waxay xagga ku arkeen naag French ah, waxayna qabteen iida si ay ayaga u saacidayso. Boys oo aqaanay luqadda Faransiiska wuxuu la hadlay iida, waxayna ogaadeen inay iida ka imaadeen magaalo ku dhow xagga. Gabadhii kaloo la dhahayna waxay ayaga u kacaysay xagga cafadeedii. Intaas kadib, waxay bilaabeen inay tashtaan si ay u qaracin lahaayeen sartaasi. Boys wuxuu sheegay inay sarta dheer ay ka fogeen xagga. Meeshina waxaa ilaaliya ciidamo aad u tiro badan oo na hubaysan. Afartoodii waxay sheegeen inuu mishinkan adeeg yahay, balse way dadaali doonaan. Hal mar waxaa imaaday nin Jarman ah oo la dhahayo Wafna. Boys iyo saaxiibadiisa waxay ku dhuunteen meel si aan loo qabanin. Wafna wuxuu imaadaa halkan habeen walba. Markii uu bilaabay inuu loo adoonsado, waxaa lagu qabtay qori, waxayna suuxiyeen isaga. Boys wuxuu u soo baxay si uu ciidanka kale u raadiyo. Wuxuuna ka soo baxsaday ciidamada ilaalinayeen karidda. Markii uu soo galay, wuu nacay kadib markii uu arkay inay ciidamada Jarmanka ay qaadaan meydka saaxiibadiisa. Wuxuuna arkay inay gubayaan jirkoodii. Wuxuu ka soo tagay xagga, balse waxaa soo fiijiyey ey. Boys waddo kale ma haysanin ilaa uu ka galo gaari si uu eyga ka baxsado. Wuuna nacay kadib markii uu arkay inay saaxiibadiisa meydkoodii xagga ku jireen. Gaarigiina xagga ayuu ka baxay. Markii uu gaarigii ku istaagay meel, Boys wuxuu ka soo degay gaarigii oo na galay meesha ay meydka gelinayaan. Wuuna la yaabay kadib markii uu arkay inay xagga tahay shaybaar. Saaxiibadiisa jirkoodina waxaa laga samaynayay tijaabo. Hal mar wuxuu arkay dhakhtar oo fiirinaya wax. Markii uu dhakhtarkii xagga ka baxay, Boys wuxuu u tagay si uu u soo fiiriyo meeshii. Wuuna nacay markii uu arkay zombie oo xagga ku jiray. Intaas kadib, wuxuu galay shaybaar aad u weyn. Wuuna aamini waayay waxay uu arkay. Wuxuuna arkay dad oo ku jiray bax oona dhiigooda lagu shubay meel. Hal mar baagii wuxuu bilaabay inuu dhaqaaqo. Baagii markii uu furay, waxaa ka soo baxay dad. Intaas kadib, wuxuu imaaday shaybaar kale. Wuxuu arkay cirbad oo ku jirtay daawo. Hal mar wuxuu maqlay qof qaylinayo, wuxuuna daawadii gashtay jeebkiisa. Intaas kadib wuxuu aaday meeshii ay qayladii ka soo baxaysay. Markii uu xagga aaday, wuxuu arkay naag oo madax kilic leh oo hadlayso. Dhinaceedna wuxuu ku arkay nin oo ka tirsanay ciidankoodii. Ninkiina wuxuu isaga weydiistay caawimaad. Boysna ma aqaan wixii uu samayn lahay. Wuxuuna ninkii ka furay beebkii oo ka xirnay, waxayna ahayd mid aad u xanuun badan. Dadaal dheer kadib, wuxuu isaga caawiyey si ay u aadaan guriga Chloe. Markii uu Boys imaaday, wuxuu bilaabay inuu saaxiibadiisa ugu sheeko wixii uu soo arkay iyo shaybaarihii. Markii ay aamini diideen, wuxuu ayaga tusay daawadii uu soo qaaday. Waxayna ninkii Wafna ahay weydiiyeen wax ku saabsan daawadaasi, balse ninkii wuu diiday inuu wax u sheego. Waxayna bilaabay inay isaga qaraacaan, balse waxba ma u sheegin.
Xagga ay ciidanka kala tashanayaan, Chase wuxuu arkay inuu wafna dhaqaaqaynin. Wuxuuna u maleeyay inuu dhintay. Wuxuuna ka furay carigii. Hal mar wafna wuu soo toosay. Wuxuuna ku dhuftay Chase. Intaas kadib qori ayuu soo qaatay oo na dilay Chase. Boys iyo saaxiibadiisa markay cabad maqleen, waxay u yimaadeen wafna oo ina cireen isaga. Markii uu arkay inuu Chase dhintay, Boys wuxuu isaga ku duray cirbadii uu soo qaatay. Qof kale wuxuu u maleeyay inuu Chase dhintay, balse hal mar ayuu soo toosay. Wuxuuna Oyoka u sheegay inuu xanuun dareemaynin. Wuxuuna bilaabay inuu dharka iska siibo, isagoo sheeganayo inuu kuleel aad u badan dareemayo. Hal mar jirkiisu wuxuu bilaabay inuu isbedelo. Wuxuuna bir ku jijibiyay madaxiisa taasoo ka nacisay qof kale. Waqtigan jirkiisu wuxuu noqday zombie. Wuxuuna kor u qaaday Boys oo na laayay ciidanka oo dhan. Ford markii uu tani arkay, wuxuu isaga ka soo toogtay xagga dambe. Intaas kadib, qofna wuxuu Oyoka u sheegay inuu Jarmanku ay wadaan baaritaan si ay dadka dhintay ay u bedelaan zombie si ay u dagaaltamaan. Oyoka oo sheekaysanaya, waxaa imaaday ciidanka Jarmanka. Wafnana wuxuu qaatay wiilkii Claw. Waxaana bilowday dagaal. Wafna waxaa lagu dhuftay cirbad, balse wuxuu la cararay wiilkii Claw. Wuxuuna imaaday xagga shaybaarka oo na bilaabay inuu isku duro cirbad. Dhakhtarkiina wuxuu bilaabay inuu isaga waaniyo, balse wafna wuxuu isku duray cirbad aad u badan. Intaas kadib, wafna wuxuu isku bedelay zombie aad u weyn. Dhinaca kale, Boys iyo kooxdiisa waxay nin Jarman ah ay ku xireen mootadiisa oo ayna geliyeen kambiga. Markay ciidanka istaajiyeen, waxay arkeen inuu afkiisa xiran yahay. Ninkiina wuu diiday inay afkiisa furaan, balse markii ay fureen, waxay arkeen inay bombo ku jirto afkiisa. Bombadiina waxay sababtay qarax aad u weyn. Boys iyo kooxdiisa waxay ka faa'iideysteen fursadaasi, waxayna laayeen ciidankaasi. Intaas kadib, Boys wuxuu Claw u soo kacay xagga shaybaarka, waxayna aragtay wiilkeeda oo caafimaad qabo. Boys wuxuu Claw u sheegay inay bacdo, xagga isaguna uu bacay si uu saaxiibadiisa u soo badbaadiyo. Claw iyo wiilkeeda markay soo baceen, waxaa soo weeraray zombie. Claw waxay ku furtay risaas, balse waxay aragtay inuu risaas wax ka taraynin. Waxayna ka carartay xagga oo ayna soo qaadatay dab oo ayna ku furtay zombigii. Zombigiina xagga ayuu ku dhintay. Ford markii uu ka bacay inuu bombadiisa hagaajiyo, wuxuu arkay wafna oo jooga gadaashiisa. Wafnana wuxuu weeraray isaga. Wuxuuna isaga ku xiray jilaab. Markii uu diyaar noqday inuu cirbadda ku duro, Boys ayaa imaaday oo na ku furay zombigii risaas, balse waxba ma ka dhibin. Wafnana wuxuu Boys ka soo tuuray xagga. Wuxuuna furay meeshii ay zombigii kale ku jireen. Ford wuxuu iska bixiyay jilaabidii, wuxuuna isku diray cirbad si uu isku bedelo zombie. Markii uu wafna dili rabay Boys, Ford wuxuu ka soo garay isaga oo na weeraray wafna. Labadoodii waxaa dhacmaray dagaal adag. Wafna wuxuu ahay mid awood badan, saas darteed wuxuu dhulka ku riday Ford. Boys markii uu tani arkay, wuxuu risaas ku riday meel gaas ku jiray, taasi oo sababtay qarax. Boys wuxuu tagay si uu saaxiibkiisa u soo kaciyo si ay bacaan, balse saaxiibkiisa wuu diiday inuu baco. Wuxuuna u sheegay inuu virus qaaday, saas darteed dib ayuu u keeni doonaa Oyoka. Hal mar waxaa soo kacay wafna iyo zombidii kale. Boysna wuxuu saaxiibkiisa u sheegay inuu xagga ka baco. Wuxuuna qarciyay bombadii, taasi oo sababtay qarax aad u weyn. Filimkeena wuxuu ka dhamaanayaa Boys oo ka soo ordayo xagga si uu u badbaado. Filimkeena xagga ayuu ka egahay. Walaal haddaad dhammaad soo gaartay, ha ilaawin inaad muuqaalkan like iyo share saarto. mahadsanid.